magacaygu Cabdiraxmaan Maxamed Cali waxaan ahay leaderka for Space Cafe iyo leaderka organization Space oo ka shaqeeyo waxbarashada ilmaha yariiska caawinta dadka beeraha iyo isbitaaliga wax guud aniga dalkan waan ku soo koray waxa la keenay anoo 10 jir waxaan ku dhigtay dugsi dhexe dugsi sare iyo jaamacad waxaan dhigtay jaamacadda BE iyo jaamacadda Hill oo Hill High School Ilil Ahmed markaan jaamacadda dhameeyay kadib waxaan u guuray dalka Soomaaliya waxaan arkay waxyaabo badan oo ka duwan dalkaani sida inay ilmaha fursad haysan marka wax badan akhrisinay waxaan niyeysanaysaa say wax uga qaban karaa Soomaali waxay dhaaraa fal kaligeed fool ma dhaqro laakiin anigu waxaan iska ahay qof madax adag oo daraal badan oo wax kasta in la sameeyo kara hadii fal la galiyo aaminsan waxaan bilaabay inaan iskoolada dugsi sare oo Muqdisho ku yaal inaan tago ilmaha ruuriyo isku day iska wax u qabsadeen wax u sameeyaan ilaa waxaan aasnay laba iskool mid la dhahayo Nuxur Primary and Secondary School iyo FNL Primary and Secondary School 2021 waxaan aasnay cafe la dhahay Space Cafe oo hadafka laga leeyahay inuu lacagta ka soo baxdo asiga in lagu kabo waxyaabahan sameeyno Space Cafe hadda waxa la furay August 15 la furay ilaa yoomiyan waxuu waxbarasho ka dhiibaa 60 cunug horay jeebkayga 110 cunug uga dhiibi jiray laakiin kafeega kaligiisa maanta 60 cunug wuxuu uga dhiibaa iskool oo la geeyay bisaan bilowgeeda la geeyay iskoolka iskoolada laba xabo koori aan aasaasay magaalada Muqdisho ku yaalin qaas ahaan degmada Daynile ku yaalin laakiin hadda iskoolkan caawino wuxuu ku yaalaa degmada Marko oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iskoolku waa iskool oo macad waa dugsi hoose dhexe sare waa iskooladii hore dawladda laakiin dad shacab hadda la wareegeen oo private ahaan loo wado deegaankan aniga waxa ay galiyay in iskoolkaas caawiyo deegaankaas marka waxa u guuray March 2020 ka guuray waxaan ku arkay xamar waxyaabo lamid ah ku arkay kuwa ka daran oo ka sii duruuf badan waxa dhacay hay'adaha iyo waxaas marka ma joogan dadkii asaas noqdo baan bilaabo falkan haddana inaan bilaabo dalaalo kafeegan meesha oo ku yaala hadda anoo marka joogo waxa la soo sheegay inaan fursad u haysan inaan kireysano June 2021 waa asina kireysan karna meeshan oo hadafkeyga iga caawi karo waa halka waxa maanta Norway ugu soo laaftay xalaha 12 August kafeega hadafka anaka u furnay maaha in laga raadinayo faa'iido hadafka u furo waxa waaye say Soomaali badan koona ogeen inay 3 milyan jajab Soomaali iskool laayihiin nin kasta wuxuu sameey kara inuu sameeyo kafeegan hadafka laga leeyahay waxa waaye inuu inta ilmuhu geey karo iskool inuu geey karo tusaale oo kala hadii anaka faa'iidadeen si weynaata ilmaha geey kan iskoolka ma arkino asi weynahay